diyaaraduhu waxa ay safri karaan kumanaan kiiloomitir iyaga oo u duulaya guud ahaan caalamka. Adduunku waxa uu noqday tuulo aad u yar, waxaana fududaatay in meel walba la tagi karo oo la soo ogaan karo xaaladdeeda. meel walba oo adduunka ka mid ah waxaad ku arkaysaa diyaarado sida quraanjada samada heehaabaya. balse haddii aad booqato Live Global Air Traffic Map oo ah maabka hawada ee kala gooshka diyaaradaha oo aad u sii gudubto qaaradda Asia gaar ahaan halkan, waxaad arki doontaa in aysan jirin wax diyaarado ah oo dul maraya. waxa ay u muuqataa in dhammaan diyaaraduhu ay ka weecanayaan eeriyadan in ay dul maraan, sidii oo ay tahay meel ka caagan gaadiidka hawada. haddaba maxay tahay sababtu? waa maxayse sheekada ka dambaysa in diyaaraduhu aysan dul mari karin goobtan? inta aanan ka jawaabin su'aalahaasi, aan ogaanno waa maxay goobtan. waxaa lagu magacaabaa Tibetan Plateau. waa dhul aad u weyn oo ku yaala qaaradda ugu dadka badan adduunka ee Asia, gaar ahaan inta badan waddanka China. waa dhul intiisa badan ah dhul buuraley ah oo dhaafa daruuraha. waa mid ka mid ah dhulka aan aadka loo degin ee jiritaanka nolosha ay ku adag tahay marka laga tago Antarctica iyo Greenland. waa mid ka mid ah meelaha ugu degidda yar ee bini'aadam ku nool yahay adduunka oo dhan iyo kuwa ugu yar ee ay dad ku nool yihiin. waa dhul 5 jeer ka weyn baaxadda Faransiiska, haddana ay ku nool yihiin dad aad u yar marka loo eego baaxadda dhulka, kuwaasoo gaaraya in ka badan 14 milyan oo qof. sababtuna waxa ay tahay celceliska sare ee dhulkan uu ka baxsan yahay cabirka dhulka ayaa ah in ka badan 4,500 oo mitir oo u dhiganta 14,700 oo fiid, taasoo ka dhigaysa Tibet Plateau ama dhulka sare ee Plateau gobolka juqraafi ahaan ugu sarreeya adduunka oo lagu naynaaso saqafka sare ee adduunka ama the roof of the world. waana mid u qalanta sababtoo ah saqafka sare ee adduunku waxa uu ahaa mid ka mid ah caqabadaha ugu weyn ee haysta diyaaradaha muddo 10 sano ah. iskudaygii ugu horreeyay ee la isku dayay in diyaaraduhu ay dul maraan dhulkan taagga ah waxa ay ahayd intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka, markii xulafadii markaasi British Hindiya ay u baahdeen in ay gurmud u qaadaan Shiinaha oo dagaal kula jiray markaas waddanka Japan. ma ahayn waddadu mid saa u fog oo waxa ay ka imaanaysay bariga Hindiya ilaa iyo Kumin oo Shiinaha ah, masaafo dhan 840 kiiloomitir. si kastay ahaataba waxaa caqabad ahayd oo lagu dhibtooday dulmaridda buuraha fog iyo figaha sare ee Tibet. duuliyayaashu waxay wajaheen gariir iyo weecweecad aad u xoog badan oo ay diyaaraduhu sameeyeen dabaylo gaaraya ilaa 320 kiiloomitir saacaddii, heerkul qabow oo keenay in shidaalka diyaaraduhu ay barafoobaan, cimilo aad u adag oo aan la saadaali karin, iyo inaysan jirin garoomo si degdeg ah diyaaraddu ugu degi karto haddii ay xaalad adag ku timaad. caqabadahaas ayaa ka dhigay Tibetan waddada duulimaad ee ugu halista badan adduunka, iyada oo muddo 42 bilood ah lagu waayey 594 diyaaradood iyo 1,659 qof. inta badanna waxaa sababay cimilada deegaanka oo aad u adag. tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka, khasaaraha kadib, buurta Tibetan si tartiib ah ayaa loogu dhiiranayay. garoonkii ugu horreeyey ee Tibetan laga dhiso Shiinaha waxaa la dhisay 1956, halka garoonka casriga ah ee Lhasa la dhisay 1955. maantadan la joogo, Lhasa iyo Shinan waa garoomada caalamiga ah ee ugu waaweyn ee ku yaala buurta Tibetan. garoonka caalamiga ah ee Lhasa waxa uu ka shaqeeyaa duulimaadyada gudaha iyo hal duulimaad oo caalami ah oo aada magaalada Kathmandu, halka Shinan oo ah garoonka labaad ee ku yaala buurtan uu ka shaqeeyo duulimaadyada Tokyo, Taipei iyo Kuala Lumpur. inkastoo mararka qaar ay diyaarado dul maraan Tibet, duulimaadyada caalamiga ah ee u dhexeeya Aasiyada bari iyo galbeedka waxa ay badanaa ka fogaadaan in ay ku dulduulaan buurahan dhaadheer ee Tibetan. waxaa jira 4 siyaabood oo waaweyn oo diyaaradaha ay uga fogaadaan in ay ku dulduulaan Tibetan. waa midda koowaade khataraha sare ee xaaladaha degdega ah. heerka sare ee buurta Tibetan waa in ka badan 14,000 oo fiid, halka diyaaraduhu ay ku socdaan ilaa iyo 30,000 oo fiid. balse marka ay xaalado degdeg ah ay dhacaan, diyaaraduhu waxay u baahan yihiin in ay hoos u dhacaan ilaa iyo 10,000 oo fiid
taasna suurtagal ma aha marka la joogo buurtan Tibetan sababtoo ah iyada ayaa ah 14,000 oo feet. Lambar 2 dad yari buurta Tibetan waxaa ku nool in ka badan 3 milyan oo qof waxaana jira baahi yar oo duulimaadyo ah oo dadka halka ku nool uma baahna inta badan in ay diyaarada helaan si ay u dhoofaan sidoo kale duulimaadyada dhaadheer ee caalamiga ah haddii ay soo wajahdo khatar ma jirto cid baxnaanin karta oo laga helayo halka sidaa darteed diyaaraduhu waa in ay ka fogaadaan khatarta xaaladaha degdega ah iyo ku safrida dhulka. Lambar 3 weecashada iyo gargariirka diyaaradaha inta badan dhulalka sare ee buuraleyda ah waxaa ka jira dabaylo ba'an kuwaasoo diyaaradaha ku sababaya in ay sameeyaan weecasho iyo gariir taasoo si adkeynaysa xaaladaha degdega ah. Lambar 4 barafoobida shidaalka diyaaradaha waxa uu barafoobaa marka heerkulku uu ka hooseeyo -40°C. heerkulka buuraleyda Tibetan waxa uu gaari karaa ama uu ka gudbi karaa heerkaas tanina waxa ay dhibaato weyn ku tahay duulimaadyada safarada dhaadheer.